runtii waa maalin aad u farxad weyn. waa maalin runtii ka turjumaysa soo noqodkii qarannimada ummadda Soomaaliyeed. inaan halkan isugu nimid oo horteena ay taagan yihiin ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo tababarka la siiyey uu yahay tababar loogu talagalay inay qabtaan howlo gaar ah. ciidamo laga keenay dalka Soomaaliyeed oo dhan, ciidamo wadanka meel walba ka wada yimid oo aan ku dhisnayn qabiil, oo ku salaysan qarannimo iyo Soomaalinimo iyo difaaca iyo ilaalinta calanka Soomaaliyeed. maanta waa maalin runtii aad loo farxo. waxaa kaloo farxad weyn leh halkan inaan u nimid inaan furno xero cusub oo ciidan oo loo dhisay ciidamada danab sida gaarka u tababaran. dhismaha xerada lafteeda waxaa ka muuqata soo noqoshada iyo dib u habeynta dib u qaabeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. qof walba marka shaki ka qabay in qarannimadii ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimadii ay soo noqonayso iyo cid walba walwal ka qabtay, maanta ayaa dhiirigelin kuugu filan. maanta ayaa tusaale ku ah in dawladnimadii Soomaaliyeed ay dib u yegleelmayso. waxaan rabaa inaan idiin sheego rajadii Soomaaliya iyo mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed waa idinka. rajada hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo carruurteenna waa idinka. si dawladnimo loo helo waa in la helaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo ogolaatay inay naftooda iyo dhiiggooda bixiyaan. inaad ballidoogla dhex joogtaan, reerihiinna ka soo tagteen oo halkan laydinku tababaray, waad u labisantihiin in habeenkii sakda dhexe intaad kacdaan aad beegsataan cadow aad ka ilaalinaysaan hooyooyinkiin, aabbayaashiin, walaalihiin iyo carruurihiinna. waxay la mid tahay inaad ogolaateen inaad bixisaan dhiiggiinna oo aanay dad badan ogoleen inay bixiyaan. taas waa ku mahadsantihiin. dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda, aniga ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeedna abaal weyn ayaan idinkaga haynaa, waana ku mahadsantihiin. intaas ka sokow waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka arrimahan nagala soo shaqeeyay, gaar ahaan dowladda Maraykanka oo runtii na garab istaagtay. maantana aan u nimid inaan xero cusub oo malaayiin doolar lagu bixiyey aan furno. xeradii koowaad oo si dhab ah loo dhiso oo kumanaan ciidama ay ku noolan karaan, kuwaasoo badanna aan rabno inaan dhisno haddii Ilaahay yidhaahdo. waa maalin aad loogu farxo. sanadkii xoogaagii aniga madaxweynuhu aan waddanka mas-uul ka ahayn, howlaha la hor yaallay waxaa ugu weynaa hadafyadooda in ciidamada dib loo habeeyo. waa tan kaliftay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku uu ka soo guuray dila Soomaaliya uu soo dhex dego wasaaradda gaashaandhigga. waa tan kaliftay inaan mar walba nidhaahdo waa in ciidamada xuquuqdooda la bixiyaa. waxaan rabaa inaan idiin sheego sida aad rabtaan naftiinna inaad u bixisaan ayaan aniga iyo madaxweynuhuna diyaar u nahay nafteenna inaan u bixinno. waxaan rabnaa inaan idin garab taagnaano, idin siino xuquuqdiinna. waxaan rabaa inaan idiin sheego idinku haddii aad soo celin weysaan qarannimada Soomaaliyeed cid soo celinaysa ma lahan. idinku ma qabiil baad tihiin? ma qabiil baad tihiin? ma qabiil baad tihiin? idinku soo ma eegina qarannimadii Soomaaliyeed iftiinkeedii. idinka ayaa laydinka rabaa inaad cadowga dalka ka xoraysaan. waxaan idinka rabaa inaad ogaataan dawladdiinna oo idin garab taagan tahay. qarannimada qof iyo laba iyo saddex isu tagtaa soo celiya. wiil iyo gabar istaagay oo yidhaahda ma aqbalayna sida horaa soo celiya. kuwa yidhaahda qabyaaladda ma aqbalaynaa soo celiya. kuwa yidhaahda hooyooyinkeen ma aqbalayna inay cadowgu beegsadaan ayaa soo celiya. ha aqbalina musuq maasuq, ha aqbalina in xoolaha dalka lagu tagri falo, ha aqbalina qabyaalad. mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iftiin ayaa ka muuqda. iftiinkina maanta aan u jeedaa waa idinka horteeda taagan. waxaan idinka codsanayaa inaad ku fikirtaan dhallinyaradii da'diinna ahayd oo waddanka cadow iyo gudaysi ka soo xoraysay, inaanay lahayn tababarka idinku aad leedihiin.
inaanay haysan dhaqaalaha haysataan, inaanay haysan isgaarsiinta iyo qalabka iyo agabka haysataan, laakiin waxay haysteen qalbi bir ah ay ku dheehan tahay wadaninimo iyo soomaalinimo. intaasaa laydinka rabaa idinkana idinka ayaa laydinku jiifaa